waxaa maanta magaalada gabiley soo gaadhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah xirsi cali xaaji xasan qaar ka mida mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka gabiley ayaa kaga hortagay kantaroolka beriyaha magaaladaasi gabiley sidoo kale waxaa halkaasi ka soo dhoweeyey qaar ka mida xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabiley ee ka soo baxay xisbigaasi wadani oo uu horkacayo mayor ku-xigeenka magaalada gabiley ugu horeyn waxaa wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi loo soo gudbiyey gudaha magaalada gabiley waxaanu shacabweynaha ku dhaqan magaalada gabiley kula sheegay fagaaro ka mida fagaarayaasha magaalada gabiley waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mida shacabka magaalada gabiley oo ka codsaday inuu ansixiyo gobolnimada gobolka gabiley ugu horeyn horta ilaahay baa mahadle inaynu maanta bartami marka magaalada gabiley uu inoogu yimaado musharaxa madaxweynaha xisbiga waxa weeyaan wadani mudane doctor cabdiraxmaan cabdulaahi ciro iyo hogaamiyihii wadani mudane gudoomiye mudane musharax madaxweyne waxaanu ku soo dhaweynaa magaalada gabiley anagoo ah xildhibaanadii golaha deegaanka sidoo kale waxaa garabkayga jooga maayar ku-xigeenkii magaalada gabiley oo isna ku soo dhaweynaya halka waxaan doonayaa maanta inaan ka faa'iidaysto anigoo ka hadlaya afkii gobolka gabiley afkii degmada gabiley afkii aqoonyahanka gabiley afkii dhalinyarta gabiley anigoo ka hadlaya oo doonaya inaan weydiiyo cabdiraxmaan musharaxa madaxweynaha insha allah uu ku guulaysan doonaa sanadka bacdi ee muddada yare gaaban inooga hadhay ninkii nool waxaan doonayaa madaxweyne inaan ku weydiiyo gobolka gabiley baan ku weydiinayaa gabiley waxay doonaysaa gobol bay doonaysaa codka 80 kun ee cod ay haysato gobol bay ku bixinaysaa madaxweyne gobol ma nasiiraysaa waxaa halka maanta inoo farxad weyne gabiley bartamihii gabiley inaynu maanta ku soo dhaweynayno madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo la socdaan wufuud badan oo la socdo gudoomiye xirsi anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarta ganacsatada mas-uuliyiinta gobolka gabiley anoo ku hadlaya soo dhawaada leeyahay mar iyo laba iyo saddex maanta gudoomiye waad arkaysaa way ka duwan tahay gabileydii hore maaha way ka duwan tahay maanta gabiley waxay u heelan tahay isbedel bay u heelan tahay maanta inta halkaa kuu fadhida cisho dhaweyd oo madaxweynihii weliba isagoo madaxweynihii waddanka ah oo sita darajadii ugu sarreeyey waddanka intaasi dhallinyari maanta meeg joogin waa la ogiyey intaa maanta dhallinyara oo dhallinyartii ka iftiimaysay gabiley meeg joogin waa laga qarinayay kamaradaha waa la wada qarinayay laakiinse maanta wax la qarinayaa ma jirto dadku diyaar bay ku yihiin madaxweyne ay ku soo dhaweynayaan 100% waxay dalkani maanta u helayeen horta gabiley haddaan nahay reer gabiley nahay waa la xoqday kaarka qabyaaladda mar baa la xoqday mar labaad mid la xoqon kara maaha laakiinse markuu ninka siyaasiga wax doonayo ayuu qabyaalad iyo kaar qabyaalad xoqdaa wariyaynaan kaar qabyaaladeed loo xoqonin ee runta maanta maxaa u dana gabiley maxaa u dana Soomaaliland aynu isweydiino maanta gabiley gobol bay rabtaa waxay rabtaayo kale wadanka sanqalax iskuulkay uu dunsan yahay waa iskuulkii qalax lagu yaqaanay ahaa muxuu ahayn boodhika wuu dunsan yahay war maanta ninka gabiley danaynaya ee gabiley raba waa cabdiraxmaan kaarkii qabyaaladda mar bayna laga xoqday ninka danaynaya gabiley aynu maanta codkeena siinno marka madaxweyne waxaan ku leenahay waa madaxweynihii baa tahay rajada fiican laga sugayay mustaqbalka baahida waad arkaysaa magaaladan gabiley waxay cabtaa biyo qadhaadh gobolnimadaba intaan la gaadhin biyo qadhaadh bay cabbaan carruurta biyo qadhaadh bay cabbaan markaa baahi badan baa taala dhallinyartii way kala qaybsan tahay waxa weeye shaqo ma hayaan gidaaradaasay fadhiyaan markay jaamacad ka soo baxaan baahi badan oo waddanka aad ku sugaysaa maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka gabiley gudoomiye cabdiraxmaan ciro iyo musharaxa xirsi waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawaada gobolka cagaaran ee gabiley haddii aan nahay reer gabiley diyaar waxaan u nahay la shaqaynta xusbiga reer gabiley in badan waxay ka cawdaan waxa weeye horumarka gobolnimadooda asixinteeda waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaahayna gaadhsiiyo oo ilaahay kuu sumo ood guulaysato inaad noqon doonto qofkii ugu horreeyey ee gobolnimada gabiley ansixiya waana qodobka ugu muhiimsan aynu kaa rajaynaa insha allah hadduu ilaahayna gaadhsiiyo anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada golaha deegaanka gabiley oo ay dhammaantood ag joogaan sidoo kale waxaa halkaasi ka jawaabay oo ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo weliba siyaasiga weyn ee maxamed cabdulaahi jaamac bookh waxaanu yidhi gobolnimada gobolka gabiley
xukuumado badan baa u ballan qaaday gabiley inay gobol hesho maantana madaxweyne muuse jooga hadduu madaxweyne muuse ka baqday gobolnimada gabiley anigu waxaan ballan qaadayaa inaan gabiley gabiley waa gobolka wax soo saar insha allahu taasaan ku tixgelin doonaa horumarka wax soo saarka gabileyna kor baanu u qaadi doonaa haddii lahayd way la qabaysaa insha allahu wax badan baan wax ka qaban doonaa oo ay ka mid tahay in shacbiga somalilan laga saaro qabyaaladda iyo qoqobka danteennu waxay ku jirnaa inaynu somalilan nahay horumarkeeda u siman nahay cadaaladdeeda u siman nahay shacbigeeduna siman yahay marka reer gabiley dadka codeeye ugu badan baa tihiin gobol gobol marka la eego marka gobolnimadan xaq baa u leedihi sidaa idiin sheegayna haddii hore looga baqay anna waan ku dhacayaa waddanna uu ku dhacayaa salaam intaasi ka bacdi waxaa loo galbiyey wafdiga uu hogaaminaya guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani hotel bowk ee magaalada gabiley oo uu shir kula qaatay mas-uuliyiinta xisbiga waddani ee gobolka gabiley ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay dhaqaaq badan oo inuu maanta isbeddel rabo ayaa gobolkii gabiley ka muuqata ka soo xarooda waa talabaad baan filaya maalintii waxaa soo xarooda 1.4 billion baa ka soo xarooda kastamka kala bayd 1.4 billion siday maanta gobolka yahayna waa la arkaya iyo siduu u muuqdo laambado yaryar oo wadooyinka lagu xidhxidho dadka lagu siro la waad arkaysaan horumarkii maanta waxaynu u baahannahay inaynu haddaba ka korno oo aynu maanta waxaa dhaafno oo aynu ka talinno danteenna farteenna inaynu ugu hiilinno iyaynu isagana abaal uga dhigaynaa waayo danteennaa ku jirtaa soo madaxweynihii ugu horreeyey ee ku dhawaaqay maaha gobolka gabiley complete anaa bixinaya haddii kuwii hore iyo kuwan dambeba ku dhici waayeen yaa inana waxaa laynaga rabaa inaynu abaalkaa celinno oo aynu maalin kacno dadka oo aynu dadka wax u sheegno oo waalkii booke kaadhkii qabyaaladdu way naga dhammaaday mid baan idiin sheegayaa bartii baa laga bilaabay iminka tii aynu ku jabnay ayaa laga bilaabayoo maalmo dhaweyto cuqaashii iyo salaadiintii iyo odayaashii iyo hargeysa lagu ururiyey oo la yidhi reeraha kalena u taga oo isaaqa kalena soo casuuma haddaa habarwal tihiin waa la bilaabay arrintaas ay nagamay dhammaan marka ama waxaynu xukuumadda iyo musabixu u sidanaa isku reer baanu nahay may u sidan mayno waynu ka tashanay waxaynu ku dooranaynaa maanta waddani qorshaynu ku dooranaynaa oo waxaynu kula xisaabtamaynaa waxaynu soo saarno beeraheenna mudhaheenna kastamadeenna deegaankeenna waxaynu kula xisaabtamaynaa inuu wax ka qabto deegaankeenna beeraheenna inuu maalgeliyo gabileyna waa la arkayaa siday tahay dhallinyartiina waanu nahay waanu ka dharagsannahay wax badanna waanu soo baadhnay waxaanu doonaynaa isbeddel muuqda waxaan leeyahay nimanka mujaahidiinta abaalkii way naga hayaan waynanu codaynay maanta waxaa loo baahan yahay qallinkii iyo ambaasadoornimada inaad ku shaqaysaan hogaamiyayaal dumarka reer gabileyna anagoo afkii dumarka reer gabiley ku hadlaya haweenweynaha gobolka gabiley afkiisa ku hadlaya annaga codkaygu markii horena diyaar buu naga ahaa iminkana waa naga diyaar markii hore waanu ku khasaarnay ma doonayno mar labaad inay dhallinyarta iyadu bilaa tacliin noqoto bilaa caafimaad aanu noqonno bilaa maxay hayday maxaa la yidhaahdaa gobol aanu noqonno intaba waxaanu ka rabnaa cabdiraxmaan dhawaaqa dhallinyarada iyo waayeelka iyo haweenka iyo odayaasha iyo mas-uuliyiinta kala duwan ka soo yeedhayay reer gabiley dhayaalsan mayno haddaanu reer waddani ma dhayaalsanayno insha allahu tacaala dalabka bulshada reer gabiley ee goboldoonka ah ee ay muddada dheer ku celcelinayeen ee uu guddoomiyuhu ballan qaaday musharaxa madaxweyne ahi waanu ka dhabaynaynaa haddii alla ka dhigo waanu ka dhabaynaynaa xisbi ahaan ma noqon doono ballan unaanu qaadne ballan dhaba bay noqon doontaa insha allahu tacaala waxaa maanta magaalada gabiley laga dareemayaa jawi isbeddel oo aad mooddo shacabweynaha gobolka gabiley inay u janjeersameen xagga xisbiga waddani waa سعيد نوح كبار سعيد بلوبه تلفزيون كعالمي اريال قبلي